lamaane markaas isguursaday ayaa ku socdaalayay doon yar si ay dib ugu laabtaan magaaladii ay ka soo jeedeen. Durbadii baddii waxaa ka bilowday dabaylo xooggan, doontiina waxay bilowday inay gariirto. Ninku wuxuu ahaa mid adag oo karti badan, wuxuu muujiyey deganaan iyo xasilooni. Gabadhii ayaa baqday, quusna istaagtay, iyadoo gariiraysa ayay ku tiri, miyaadan adigu baqaynin? Tan waa maalintii ugu dambeysay noloshayna, ugu dambayn ayaannu taagannahay. Ereyadaas iyo kuwo kale ayay ku tiri, maad ii jawaabtid, maxaad samaynaysaa? Ninkii ayaa seef gacanta ugu jirtay gasha kala baxay. Gabadhii ayaa yaabtay oo istiri, muxuu hadda seeftan ku samaynayaa? Dabaylo ayaaban haystee. Seeftii ayuu dhuunta ka saaray. Markaas ayuu ku yidhi, miyaadan baqaynin? Gabadhii oo qosol gariiraysa ayaa ku tiri, sideen uga baqayaa? Seeftu gacantaada ayay ku jirtaa, waxaana ogahay inaad i jeceshahay. Seeftii ayuu gasha ku celiyey, wuxuuna ku yidhi, jawaabtan waad haleeshay. Dabayshu waxay ku jirtaa gacanta Alle, waxaana ogahay in Alle uuna jecel yahay. Wax kasta oo nagu dhaco waa khayr. Haddii aan badbaadno waa khayr, haddii aan badbaadi weyno waa khayr. Maxaa yeelay annagu dadaalkii nagala rabay waannu samaynay, Allana waan tala saaranay. Fadlan daawade, subscribe sar oo asxaabtaada la wadaag.